السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبر سلامية جودهان دتك كحرن كنال كيجا لين إنجليش with حسن صاحبي يلا وحن مانت أن إدين سودياري 10 أدو حسابا أو كسابسن وورلد كاب كي دماضي كدعي وطن كاسي قطر يكون جولي ستحولك كبدا عكت أرجنتين إن شاء الله وحن مانت هل كان سفا فاسن وشرح دورنا 10 كان هدبا وحن عوان وقصر دقي وتوبيك وحوية و everything وحولبه or you need aad u baahan tahay to know in aad ku ogaato about FIFA World Cup 2022 wax waliba oo aad u baahan tahay in aad ka ogaato koobka adduunka ee 2022 waxaan marka hore si faahfaahsan u gali doonaa Messi in uu ku guuleystay koobkii adduunka. Messi won ayaa ku guuleystay the World Cup koobkii adduunka. Leo ayaa la wareegay koobkaas qaatay. waayahay Argentina waxa ay ku guuleysatay the World Cup koobkii adduunka in Qatar ee wadanka Qatar after 4 weeks of competition kadib 4 isbuuc oo tartan ah ay ku guuleysteen. They beat waxa ay garaaceen France waxa ayna ku garaaceen on penalty kicks goal kulaadyo ayay ku garaaceen yani waa rigoor ay kaga badiyeen in a match ciyaar that will be remembered taasoo loo xasuusan doono as one of the greatest finalists of all time mid ka mid ah finaaladii abid ugu weynaa ciyaar loo xasuusan doono. It's Argentina's third title waa titlekii saddexaad ee Argentine yani waa koobkii saddexaad ee adduun and the first iyo kii ugu horeeyay for Lionel Messi ee ciyaaryahan Lionel Messi. This is the first time kani waa markii ugu horeysay oo he can call uu ugu yeeri karo himself nafsadiisa a World Cup champion horyaalka koobka adduunka. Leo waa markii ugu horeysay ee uu isugu yeeri karo inuu yahay horyaalka adduunka inuu yahay. After decade kadib 10 sano and a half of waiting iyo bar oo sugitaan ah marka erga decade waa 10 sano ayaa waxa la isku yiraahdaa decade and half iyo bar of waiting ee sugitaan ah. He finally won ugu dambeyn waa uu ku guuleystay Leo sida halkan kaaga muuqata isagoo koobkii shuminaya. waayahay the final World Cup match ciyaartan finalka ah ee koobka adduunka ee between u dhaxaysa Argentine and France Argentine iyo Francisco u dhaxaysa was a truly amazing run ahaantii waxa ay ahayd mid aad cajiib u ah truly amazing. Messi ayaa scored waxa uu dhaliyay 2 goals laba goal in the dramatic match ciyaartii riwaayada ahayd maxaa yeelay xulkan baa laba goal ku hormaray Argentine labadii waa laga keenay haddana goal kale dhaliyeen waa laga dabiibin haddana ciyaartii dhanba waxa isku ay noqotay ciyaar run ahaantii cid waliba ay la yaabtay oo guushii dhinaca ay noqonayso qof waliba uu ku wareeray. He finished waxa uu ku dhameystay the tournament tartanka with 7 goals 7 goal ayuu ku dhameystay in 7 matches 7 ciyaar oo uu ciyaaray waxa uu ku dhaliyay 7 goal. He also won waxa uu sidoo kale ku guuleystay the Golden Ball Award abaalmarinta kubadda dahabka ayuu ku guuleystay as the best player of the tournament ciyaaryahankii ugu fiicnaa tartanka. erga tournament waa tartan waxa la leeyahay haddaba what a night maxay habeen ahayd what a final muxuu final ahaa and what a player Messi has been Messina muxuu ciyaaryahan ahaa. His incredible career xirfadiisii ama waayihiisii cajiibka ahaa is now complete hadda uu dhammaystiran yahay baa la leeyahay maadaama uu ku guuleystay Ballon d'Or Champions League horyaalkiisa koobka kooxaha adduunka shayga ugu muhiimsanaa Copa America kii ugu muhiimsanaa kubadda cagtana uu ku guuleystay ahaa koobka adduunka. This was kani wuxuu ahaa one of the most exciting World Cup finals ever mid ka mid ah finaaladii ugu farxadda badnaa ee abid erga ever waa abid. History taariikhduna will only remember waxay xasuusnaan doontaa waxay ku xasuusnaan doontaa on a December night habeenkii December in Qatar ee wadanka Qatar gudihiisa. The world's most popular player ciyaaryahanka ugu caansan dunida ayaa finally won ugu dambeyntii waxa uu ku guuleystay
football's most important trophy. koobka erga trophy waa koobka ugu muhiimsan kubadda cagta waa koobka adduunka. His country wadankiisuna beat waxa uu garaacay France waxa uu ku garaacay in one of the most thrilling finalists, mid ka mid ah finaaladii ugu xiisaha badan. erga thrilling waa ugu xiisaha badan waa yahay in World Cup history ee taariikhda koobka adduunka. People dadku will be talking about waxay ka hadli doonaan this finalkan for a long time, waqti aad u dheer ay ka hadli doonaan. halka Leo iyo Argentina baan kaga talaabaynaa, haddana waxaan ugu dagalaynaa si guud koobka adduunka. The FIFA World Cup koobka adduunka ee FIFA is a professional football tournament. waa tartan kubadda cagta oo professional ah oo held la qabto between inta u dhaxaysa loo qabto national football teams, kooxaha kubadda cagta ee qaramada, organized by FIFA, waxaana soo abaabulay tartankan FIFA. The tournament tartanku held waxaa la qabtaa every 4 years, 4 sano ee kasta ayaa la qabtaa. And the first time markii ugu horeysay played ee la ciyaarayna waxay ahayd in 1930 in Uruguay. wadanka Uruguay ayaana lagu ciyaaray markaas. koobka adduunka markii ugu horeysay ee la ciyaaro wuxuu ahaa 1930 wadanka Uruguay ayaana lagu qabtay. waayahay and has been contested waxaana ku tartamay by 32 teams, 32 koox since tan iyo the 1998 event, dhacdadii 1998. The tournament was contested with waxaa ku tartamay tartanka erga contested waa ku tartamid 8 round groups, 8 wareeg oo gurubyada ah, followed by oo la raacsiiyey knockout round, wareega bugbaxda oo yani haddii laga badiyo waa boorsada qaadanaysaa weeye. For 16 teams 16 kooxood ayaana wareega knockout-ka ku tartamaysa maadaama 16 kale ay ku soo harayaan gurubyada. The defending champions difaacadayaasha horyaalku waa France ay ahaayeen. champions waxay ahaayeen France, who defeated kuwaasoo ku garaacay Croatia, wadan Croatia 4-2 in the 2018 FIFA World Cup final. finalkii 2018 ay Croatia 4-2 kaga badiyeen. goolalka kala yimiday Mario Mandzukic oo iska dhaliyay free kick uu soo qaaday Anthony Griezmann, iyo rigooro uu dhaliyay Griezmann, iyo Paul Pogba oo darba saaruq ah ka dhaliyay xulka Croatia, iyo Kylian Mbappe oo isna gool aad u qurux badan oo banaanka diilinta 18 ka soo garaacay ka dhaliyay. halka labada gool ay ka kala heshay xulka Croatia ciyaaryahan Perisic oo darba qurux badan ka dhaliyay, iyo Mario Mandzukic oo dhamaadkii ciyaarta khalad uu sameeyay goolahayaha France Hugo Lloris ku ciqaabay. 4-2daas ay 2018 koobka ku qaadeen, iyaga ayaana ahaa championskii difaacanayay koobka adduunka. balse markii dambe waxaa kala wareegtay Argentina oo kaga badisay 4-2 rigooro ah. waayahay being held in lagu qabto in Qatar, wadanka Qatar. It was the first World Cup tournament wuxuu ahaa tartankii ugu horeeyay ee koob adduun to be held ee lagu qabto in the Arab world, dhulka Carabta. Spectators daawadayaashana were not required, loogama baahnayn to follow inay raacaan most COVID-19 pandemic restrictions, xadidaadihii safmareenka COVID-19 inta ugu badan inay raacaan loogama baahnayn, sida social distancing, in la kala fogaado, dadku bulshadu inay kala fogaato, wearing masks, face mask in la soo xirto, and many others iyo kuwa kale oo fara badan intaaba loogama baahnayn. And the event dhacdaduna was held waxaa la qabtay during inta lagu guda jiray November and December. It was held waxaa la qabtay over a reduced time frame, waqti go'an oo frame ah oo haddana la soo yareeyay, oo ah 29 days in lagu ciyaaray 64 ciyaar in lagu ciyaaray ayaa tartanka lagu soo koobay. waayahay the Qatar national football team kooxda kubadda cagta ee Qatar, qaranka ee Qatar ayaa entered waxay soo galeen the event dhacdada. their first World Cup ayuuna ahaa koobkooda adduun ee ugu horeeyay, automatically si toos ay u soo galeen as the hostess national team maadaama ay yihiin
martigeliyaashii qaranka teamkii qaranka ee martigelinay erga hosts waa martigelin marka koobka adduunka wadanka lagu qabanayo isagu wax isreeb ah iyo shuruudo kuma xirna si toos ah ayuu koobka uga soo qayb galaya laakiin 31 kale ee soo harta iyagu isreeb bay soo galayaan waa ay soo rafaadayaan waayahay 31 teams 31 team who were determined kuwaasoo lagu soo go'aamiyay by the qualification processkii ama wadadii isreebreebka ay soo mareen 31 kale ee koobka adduunka qayb galay Qatar ayaa lost waxa ay lumisay all three group matches saddexdii ciyaar ay ciyaartay ay guul dareysatay becoming iyadoo noqotay the first hostess martigeliyaashii ugu horeeyay to lose lumiya and every game kulan waliba yani koox kasta waxa laga rabaa saddex ciyaar inay ciyaarto groupkeeda oo ay shaqaysato Qatar saddexdii ciyaar ee groupka ay ciyaartay waa la garaacay waana runtii wax oo aad inay u liidato dhanka kubadda cagta ayaa halka ka muuqata waayahay groupka telegramka ee way aragnaad ku soo birto 11 si cashirkan isagoo documenti aad u hesho waayahay Argentina waa champions waxay noqdeen waxay ahaayeen champions bay noqdeen Argentina after winning kadib guushoodii the finalkii against ay kaga hortageen the France oo ay kaga badiyeen 4-2 on penalties afar laba rigoor ah following taasoo ay ka dambeysay 3-3 draw saddex baraajo 3-3 ah after extra time kadib waqtigii dheeriga 30 daqiiqo ayaa lagu daray runtii ciyaartan aniga waan daawanayay waa ciyaar aad u xiiso badan bay ahayd bilowga ciyaartaba rigoor ay heshay Argentina Leo ayaana u saxiixay balse adana daqiiqada yar kadib Angel Di Maria ayaa kubad qurux badan oo Leo uu soo dhisay waxa banaanka u soo dhigay ciyaaryahanka u ciyaara Brighton ee loo yaqaano McAllister kadibna Di Maria oo sidii gantaalkii oo kale u duulay ayaa imaada intuu ku dharbaxay shabaqa Hugo Lloris oo waardiyaha ka ahaa balse wax yar kadib kaambida sidaa baa lagu maray waa la isku soo laabtay iyadoo la leeyahay alla ilaha areen France waxa la leeyahay France aad bay ugu liidataa oo Argentina ayaa markaan handadaysa waxa xusid mudnaad oo dadka ka yaabisay in labadii weeraryahan ee afka hor u ciyaaraysay ee Dembele iyo Giroud oo ciyaarta ka saaray macallin Didier Deschamps markaas dadkii dhan ay madaxa qabsadeen laba goolna lagu leeyahay balse wax yar kadib ciyaarta markii adiga Cambia la soo laabtay oo xoogaa ciyaarta ay socotay Kylian Mbappe ayaa laba gool oo aad u qurux badan rigoora iyo gool kale oo islaab ah oo gantaal ah shabaqa dul dhigay oo Emiliano Martinez waardiyaha ka ahaa iyadoo sidaa tahay ciyaarta 90 daqiiqo laba ay ku dhamaatay dadkii oo wadnaha farta ku dahayo ayaa waxa lagu daray 30 daqiiqo ee la wada sugayay 30 daqiiqo socoto ayaa Leo goolkii saddexaad u dhaliyay xulka Argentina markaana dadkii dhan ay wada aamineen in Leo uu caawa la tagay koobka ciyaartuna ay sidaa ku dhamaan doonto balse daqiiqadihii ugu dambeeyay ayaa rigoor waxa helay xulka France Kylian Mbappe ayaa mar kale shabaqa soo taabsiiyay balse waxa xusid mudnaa in 3 daqiiqo oo lagu daray 120 daqiiqo markii ay dhamaatay 3 daqiiqo lagu daray ay dhamaatay in Janis aad u qurux badan oo helay ciyaaryahanka lambarka 12aad u wata wadanka Faransiiska balse waxa ka beeniyay Emiliano Martinez oo noqday geesiga ciyaartaasi runtii ciyaar aad u xiiso badan bay ahayd waa laga sheekeynaa hadii la yiraahdo waayahay French player ciyaaryahanka Faransiiska ee Kylian Mbappe ayaa became waxa uu noqday the first player ciyaaryahankii ugu horeeyay to score a dhaliya a hat-trick saddexley ayuu dhaliyay in a World Cup final koobka adduunka finalkiisa Cincinnati Gio Harris ayaa sidaas sameeyay in the 1966 finalkii ahaa and won waxa uu ku guuleystay the Golden Boot koobka dahabka ayuu qaatay ciyaaryahan Kylian Mbappe as he scored maadaama uu dhaliyay the most goals goolasha ugu badnaa oo 8 ahaa during inta lagu guda jiray the tournament tartanka Argentine captainka Argentina Lionel Messi ayaa was voted waxa loo codeeyay the tournament's best player ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee tartanka sida halka kaaga muuqatana winning inuu ku guuleystay the Golden Ball kubadda dahabka Emiliano Martinez oo ah gooliyahayaha cajiibka ah ee Argentina ka saaciday inay qaado koobka adduunka iyo Copa America intaba ayaa isna waxa uu ku guuleystay the Golden Glove gacanta dahabka awarded ayaa waxaana lagu abaalmariyay the tournament's best goalkeeper goolhayaha ugu fiican ee tartanka and Enzo Fernandez waa asna ciyaaryahan u ciyaara Argentina ayaa ku guuleystay the young player
da'yarkii ciyaaryahankii da'yarta ayuu ku guuleystay isna marka waxaa la leeyahay award ayuu ku guuleystay awarded waxaana lagu abaalmariyay the tournament's best young player da'yarkii ugu fiicnaa ee tartanka the choice afwan the choice ama dookha to host lagu martigelinayo the World Cup koobka adduunka in Qatar ayaa attracted waxay soo jiidatay significant criticism dhaleecayno muhiim ah waxaa lala yaabay the country's treatment qaabkii uu la dhaqmay wadanku migrant workers shaqaalihii muhaajiriinta ahaa women haweenkii iyo members xubnaha of LGBT community bulshada loo yaqaano LGBT-ga ama dadka isku galmooda isku jinsiga ah oo si qurux badan ay ula tacaamushay maadaama ay ka mamnuucdo wadankeeda in waxyaabahaas foosha xuna lagu soo bandhigo oo xitaa waxay cancel saartay in khamriga meelaha banaanka publiga lagu soo muujiyo dadka run ahaantii koobka adduunka aad bay u xakamaysa wadanka Qatar haddaba tournament details baynu kusoo gabagabaynaynaa ama faahfaahinadii tartanka host country wadanka lagu martigeliyay waa wadanka Qatar ayaa martigeliyaasha ahaa dates taariikhuna waxay ahaayeen koobka uu socday 20 November ilaa iyo 18 December ayuu socday tartanku teams ama kooxaha ka qayb galana waa 32 oo ka yimiday 5 confederations afar confederation bay ka imaadeen confederation waxa la yiraahdaa for example federation waa xiriir wadan confederation waa xiriirka qaaradda for example UEFA oo kale xiriirkan CAF oo kale oo Afrika ah kuwaas waxa la yiraahdaa confederations waa yahay final positions kada isla fiirno positionada ugu dambeeya champions waxa noqday Argentine runners up waxa la yiraahdaa kuwa koobka laga qaaday waa France third place ama kaalinka saddexaadna waxa galay Croatia fourth place kaalinta afraadna waxa soo galay Morocco tournament statistics tirakoobkii tartankana wuxuu noqday match played ciyaaryaha la ciyaaro waxay ahaayeen 64 match 64 ciyaar goal scored goolasha la iska dhalina waa 72 gool attendance waxa soo xaadirtay 3,404,252 qof ayaa soo xaadirtay koobkii adduunka ee ka dhacay wadanka Qatar oo run ahaantii aad u ahaa koob aad u xiiso badan top awards waxa qaatay abaalmarinadii ugu sareeya la yiraahdaa Kylian Mbappe oo dhanka gool dhalinta 8 goals ku qaatay best player ciyaaryahanka ugu fiicnaa Lionel Messi ayaa qaatay best young player da'yarka ugu fiicnaana Enzo Fernandez ayaa qaatay best goalkeeper waxa qaatay goolhaye ugu fiicnaana Emiliano Martinez fair play award abaalmarinta ciyaar wanaagana waxa qaatay xulka kubadda cagta ee England ayaa la siiyay maadaama jaalayaasha ayaa la firinaya xulku ka jaala yar yahay oo ka ciyaar wanaag fiican yahay ayaa la leeyahay hadii jaala badan aad aroorsato macnaheedu waxa weeye hab dhaqankaagu aad buu u liitaa marka run ahaantii koobkii adduunka wuxuu ahaa koob aad loo wada xasuusan doono finalkii ugu xiisaha badnaa ayaana ka dhacay wadanka Qatar run ahaantii wuxuu ahaa koob aan aad ugu raaxaysanay insha Allah saaxiibayaal halka ayaan ku soo afmeeraya muuqaalka waxaan rajaynayaa in aragtida aad qaybta commentiga nagu soo wadaagto maxaa kugu leeyahay badnaa ee aad ku xasuustaa koobka adduunka haatana waxaad ku soo dhawaateen isagoo aan ka soo dhigay cod artificial aan soo saaray oo qof luqadda Ingiriiska u dhashay uu akhrinayo artificial sound ayaa la yiraahdaa ku soo dhawaada saaxiibayaal aad baan u mahadsantiin insha Allah Topic: Everything you need to know about FIFA World Cup 2022. Messi won the World Cup. Argentina won the World Cup in Qatar after 4 weeks of competition. They beat France on penalty kicks in a match that will be remembered as one of the greatest finals of all time. It's Argentina's third title and the first for Lionel Messi. This is the first time he can call himself a World Cup champion. After a decade and a half of waiting, he finally won. It was an unforgettable final. The final World Cup match between Argentina and France was a truly amazing. Messi scored 2 goals in the dramatic match. He finished the tournament with 7 goals in 7 matches. He also won the Golden Ball Award as the best player of the tournament. What a night! What a final! And what a player Messi has been! His incredible career is now complete. This was one of the most exciting World Cup finals ever.
history will only remember that on a December night in Qatar, the world's most popular player finally won football's most important trophy. His country beat France in one of the most thrilling finals in World Cup history. People will be talking about this final for a long, long time. The FIFA World Cup is a professional football tournament held between national football teams. Organized by FIFA, the tournament held every 4 years, and the first time played in 1930 in Uruguay, and has been contested by 32 teams since the 1998 event. The tournament was contested with 8 round groups, followed by a knockout round for 16 teams. The defending champions were France, who defeated Croatia 4-2 in the 2018 FIFA World Cup final. Being held in Qatar, it was the first World Cup tournament to be held in the Arab world. Spectators were not required to follow most COVID-19 pandemic restrictions such as social distancing, wearing masks, and many others. The event was held during November and December. It was held over a reduced time frame of 29 days with 64 matches played. The Qatar national football team entered the event, their first World Cup, automatically as the host's national team, and 31 teams who were determined by the qualification process. Qatar lost all 3 group matches, becoming the first hosts to lose every game. Argentina were the champions after winning the final against the France 4-2 on penalties, following a 3-3 draw after extra time. French player Kylian Mbappé became the first player to score a hat-trick in a World Cup final since Geoff Hurst in the 1966 final and won the Golden Boot as he scored the most goals, 8. During the tournament, Argentine captain Lionel Messi was voted the tournament's best player, winning the Golden Ball. Emiliano Martinez won the Golden Glove, awarded to the tournament's best goalkeeper, and Enzo Fernandez won the Young Player Award, awarded to the tournament's best young player. The choice to host the World Cup in Qatar attracted significant criticism, the country's treatment of migrant workers, women and members of the LGBT community. Tournament details. Host country: Qatar. Dates: 20 November, December 18th. Teams: 32, from 5 confederations. Final positions: Champions: Argentina. Runners-up: France. 3rd place: Croatia. 4th place: Morocco. Tournament statistics: matches played, 64 matches. Goals scored, 72 goals. Attendance: 3 of 404, 252. Top awards: Kylian Mbappé, 8 goals. Best player: Lionel Messi. Best young player: Enzo Fernandez. Best goalkeeper: Emiliano Martinez. Fair Play Award: England. End.